بسم الله الرحمن الرحيم casharadeenii taxanaha ee fasalka 8aad ee maadada Soomaaliga baan rabnaa inaynu halkeen ka sii wadano maanta casharka inoo ku qoran meesha wuxuu noqonayaa cutubka labaad ee casharkiisa afraad baynu ka maraynaa oo maanta ka qaadanayna waxaana kaga hadlaynaa waxtarka ay dhirtu inoo leedahay baynu kaga hadlaynaa guud ahaan inteynaan u gudagelin casharkeena waxaan rabaa inaan bulshadeena waxa weydii la ku ruuyaa casharada aakhir ee dhageysata oo ka falcelisa aan u sheego casharada aan duubayno oo meeshaan ku jiray waa cashar fasalka 8aadka uu leeyahay fasalka 8aadkaana waxa loo raacayaa muqarrarkiisii fasalka 4ka sidoo kale muqarrarkiisa la raacaya markaan ka hadlayno cutubada qaarkood ma aha inaynu si guud oo waxa weey afkeenni oo dhan aan ka hadlayno waxa weey inta muqarrarka ardayga uga qoran baynu ka hadlaynaa sadarteed ma ahan in qofku uu arko in waxa weey casharada waxa weey la soo gaagaabiyo sida looga tagay ardayga casharkiisa la raacaya waa in ardayga waxa meesha ugu qoran loo raaco waxa weey ardaygu waxa weey culays badan aan markaa la saarin marka sida ina ula socotid ba muhiim ah casharka maanta wuxuu aynu ka hadlaynaa dudooyinkii hore oo waxa weey dilay ku run yahay Soomaalida ama reer miyiga dudo marka waxay noqonaysaa dadku sidiisa waxa weey qoys uu reer ku noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa hadii ilaahay ku run yahay chess meel degan oo kale isaguna waa dhici karaa waxa soo hara marka dudo waa iyaduna timaada marka dudadu marka waxay noqonaysaa waa dhowr qoys oo meel waxa weey degay oo ama naq marka ka wada degay ama si kale waxa weey biyo iyo baad midkay doonto ha noqotay marka reer degsiimo isku degsiimo marka noqday way qoys marka waxaan ku macnayn karnaa reer marka waxa weey dilay ku run yahay oday iyo xaajiyadiisa iyo ciyaal marka ay u joogaan dhalinyaro ah oo laga yaabo xataa barbaarka reerkaasi inuu leeyahay reer leeyahay oo isaguna odayga waxa weey uu dhisan yahay oo marka uu la degan yahay marka waa qoys waa wax ka ballaaran yahay markaynu ka hadlayno chess ka hadlayno chessku marka isagu waa oday iyo waxa weey arigu meel ku haysto iyo xaajiyadiisii iyo awrkii uu raran jiray iyo waxa weey wax saas oo kale oo aan waxa weey saa u badnay weey marka waa ka yaryahay ka dudadu marka waxay oranayna dhowr qoys oo marka waxa weey meel wada degay oo waxa weey dilay ku run yahay badan waa marka oranayna dadku marka waaga hore waxay ahaan jireen dudooyinku saan oo kale dadku ahaan jireen waaga hore biyamaal iyo dhulmaal iyo baajamaal iyo beledmaal marka afartaas markay ahaan jireen waxaan inagu ka hadlaynaa waxa weeye saanay marka noqonayaan qolada biyamaalka ay waxa weeye reer badeedka dadka ah oo badda xirfadeeda leh oo badda marka wax kala soo baxa dad noocaas ah jir ay ahaan jireen baa magacaas la oran jiray qaybta waxa weeye dilay ku runaya ku xigtay oo dhulmaalkuna waxay ahaayeen dad intay dhulka waxa weeye dilay ku runaya xirfad u leeyihiin qaabka wax lagu beero isla markaana wixii uga soo go'a marka iyaguna intifaac ka dhigan jiray iyo waxa weeye dilay ku run yahay qolada waxa weeye reer miyiga oo iyagu xirfada habtibaaxeedka xoolo dhaqatada leh iyo waxa weeye hadii la ku run yahay beledmaal oo ah reer magaalkii marka afarta tan baa marka waxa weeye dilay ku run yahay dadka loo qaybin jiray marka hore oo ay ahaan jireen afartaas marka xirfadaha noocaas leh waxa marka jiri kuwa kale iyagu marka xirfad kuwa kamidana aan lahayn isla markaana noolaan jiray dadkaas marka waxay ahaayeen dad la oran jiray waa xilligii hore baynu ka hadlaynaa marka waxa la oran jiray marka qaraabsato baa la oran jiray qaraabsato marka kuwa qaraabsatada la yiraahdaa iyo kuwa kale la yiraahdo iyaguna gabraarato marka xilligaas oo kale markaynu ka hadlayno kuwan iyagu waxa weeye qaraabsatada la yiraahdo xoolo ku filan marka iyagu xoolo ma lahan laakiin waa dad xirfad u leh in ay dhirta waxa weeye dilay ku runayaan mirahooda iyo waxa weeye dilay ku runayaan xabagtooda ku noolaa jiray iyo kuwa kan kale oo la yiraahdo gabraarato iyaguna la oran jiray marka iyaguna miraha iyo xabagta dhirtaas waxa iyaguna waa guran jireen laakiin xeelad waxa u dheerayd ahayd waxa weeye dilay ku runayaan in ay waxa weeye dilay ku runayaan ugaarta oo kale dilay ku runayaan marka iyaguna ay soo qabsadaan oo dabin u samaystaan ama waxa weeye hab kale ha ku qabtaan iyaguna ku noolaan jiray waa inta marka dadka aan lahaan jirin xoolaha weey dadku xoolo ma wada lahaan jirin waaga hore waxa weeye waxa weeye dhifa baa laga yaabaa inay xoolo marka ku filan lahaayeen marka sidaas ay ugu noolaan jireen waxa marka inagu ka hadlaynaa waa dhirta yani sidii loogu noolaa baan rabnaa habkeena inaan u ogaano dadka noocaas oo dhan marka waxay ku noolaan jireen dhirta mid xoolihiisa ugu noolaadaan oo cad iyo caana ka hela marka iyo mid waxa weeye dilay ku runaya xabag iyo miro intuu ka gurto marka dhibka iyo gaajada iyo dihaalku marka ay kaga haraan waayahay kuwa kale oo la yiraahdo marka iyaguna waxa jiri jiray arahtag la yiraahdo ba iyaguna jiri jiray arahtag
marka arahtag kuwaas ama anfactag midka hadba dhahdo anfactag ama arahtag kuwan marka iyagu kuwa xoola la'aan u geysay marka xabagta iyo miraha dhirta ma ahan waa dad intay awrtooda rartaan oo isbuuciyo maqnaadaan xabagta iyo dhirta guraan kadibna waxa weeye miraha gurtaan marka magaalooyinka ama tuulooyinka u iib geyn jiray marka si marka ay uga helaan anfac kale oo waxa weeye taa ka duwan bay iyagu waxa weeye u rareen marka awrta ay ku rartaan bay leeyihiin xoolihii bay leeyihiin laakiin waa ganacsi ahaan bay marka iyaguna qaab noocaas oo kale taabay u samayn jireen marka afartaa meesha ku qoran oo ku muuqda waxaa barkulan u ahaa barkulan marka waxa la yiraahdaa meeshii bartilmaameedka oo la isugu imaan jiray dadkoo dhan barkulan marka barkulanka waxa ahaan jiray reer magaalka sababtoo ah waxa weeye reer magaalku markay barkulanka u ahaanayaan iyagu markuu saato kale ay ahaayeen oo halkaan dadkii beeraha ay ku qoran yihiin halkaana kuwii badda oo kale dhankaana kuwii waxa weeye dhulka wax uga soo go'i jireen iyaguna ay ku qoran yihiin reer magaalku marka halkaas oo kale u noqonaya sababta waxa weeye ninka kan wixii dhulka uga soo baxa wuxuu keenaya magaalada ninkan wixii uga soo go'a waxa weeye dila ku ranayay uu baddiisa ka helo wuxuu keenaya magaalada kan cadka iyo caanaha iyo subaga iyo xoolaha noolba wuxuu keenaya magaalada kadibna wuxuu kaga bedelanayaa wixii marka uu isagu marka u baahan yahay dad haday noqoto haday waxa weeye daawooyin dib xoolaha oo kale ta ay noqoto wixii uu rabo marka kaga bedelanaya kana sidoo kale ta isagu marka mideeda kale barkulan waxa kale oo loo yiri iyagu ma guur jirin dadkan magaalada dad intay meel ka guuraan meel kale aadama ahayn laakiin ninka badda oo kale to baddu xilli bay ka xirantaa kan beeraha oo kale ta ishaas ku xirantahay oo xilliga roobku dooba beeraha la beera oo riigagan iyo ceelashatan iyo waxaan soo saaray ilbaxnimadani ma jirin ka kale oo reer baadiyaha isaguna ama reer miyiga hadba ka u taqaanaa isaguna xoolihiisa hadba meeshii baadiye biyo la aadi jiray oo guuri jiray marka kuwaasi ma ay guuri jirin iyagu halkoodaas deganaa jiray saas marka barkulanimada ku qaateen dadkuna wax weeye dila ku ron yahay ugu imaan jiray meel la isugu yimaaday marka taasi ay ahayd way marka waxaan ka hadlaynaa casharkeennan dhirta siday dadku ugu xirnaayeen dhirta cunto ahaan siday ugu xirnaayeen baynu ka hadlaynaa way dadku marka dhirta waxa weeye dila ku ron markaynu ka hadlayno qayb waxaa jirta cunno ahaan loo beero oo beeraha waxa weeye inta la beero marka dalagga ka soo go'a magaaladana loo iibgeeyo waxa weeye dadkuna marka ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan sida dhirta halka ku qoran oo ay ka mid yihiin waxa weeye galeyda iyo hadii la ku riyay digirta masagada sinsinta lawska saytuunka cinabka hadii la ku riyahay misirta iyo wixii la mid ah dhirtaas oo kale waxay ahaayeen dhir intay beertaan dadku marka hadii la ku riyay ay wax kala soo baxaan halka geedaha kala qaarkood iyagoo hawdka ku yaala ay miro yeelan jireen oo miraha iyo xabagtaas ba laga soo guran jiray kuwaani kuwo hab waxa weeye xirfad waxa weeye iyagu ay lahayn marka inta dhulkii mirihii lagu daadiyo kadibna wixii geedkii soo baxo kadibna mirihiisa waxa weeye dila ku run la qaato bay ahaan jiray waxa weeye marka dhirtan waxa beeri jiray marka hadii la ku run yahay waa la beeri jiray dalaga ka soo baxana marka waa la intifaacsan jiray magaalooyinka loo iibgeeyo ama waxa weeye dadka kale wax laga bedesho ama iyaga laftooda ku noolaadaan qaab noocaas oo kale ta bay dhirta u adeegsan jiray waayahay dhulku marka laga yimaado dadka xoolaha waxa weeye dila ku reen dadka beeraha waxa weeye beeray marka laga yimaado waxa jirtay adiga oo habab kala duwan dhulkii u maraya ama waxa weeye dila ku reen socoto ah ama waxa weeye duulaan ah ama baadidoon ah xoola kaalumeen ama guurmeera oo asaawataga ama waxa weeye dila ku reen sahan ah ama safar waxa weeye meel dheer u aaday ama waxa weeye xoolaha la joogta intaas ba adoo ay waxa weeye saqaafo ah oo waxa weeye dhulkaagaas dul maray oogadiisa baa laga yaabaa baahi inay ku timaado ah ama biyo la'aan kugu dhacdo ama cunno la'aan ay kugu dhacdo ilaa dhul baad maraysaa oo waxa weeye gurina waa ka soo tagtay guri kalena ma adgaarno meel dhaxal laga yaabaa inay arrimahaas ay kugu yimaadaan dhulku marka wuxuu lahaa cunno buu lahaa marka dadku ay ku baahi beeraan oo waxa weeye hadii la ku roonyahay dhirtii mirahaas lahaan jiray oo miraha laga guran jiray maxaa miyaha ka mid ahaa bardihii dhafaruurtii gudda hadii la ku roonyahay himirta gomashka darayga cajeelka murcanyada dhaameelka hadii la ku roonyahay gobka hohobta xamurka garaska hadii la ku roonyahay rooxada ilgaalka askaxda uneexada waxaas oo dhan waxay ahayd barwaaqo dhirteenu ay lahayd oo waxa weeye la soo koobi karin marka waxaas iska guranaysa oo cidina ka iibin mirihii oo kala duwan oo waxa weeye kala dhigaalka xataa ku kala duwan oo qaybtood kugu dhigmi kadho qaybtood maalintaas cuni kadho qaybtood waxa weeye dhowr maalmood ku joogi kadho marka waxa weeye miraha geedku saddex qaybood bay noqonayaan mar inay curdan yihiin oo kale mar ay gahayr yihiin oo adkaadaan marna ay marka bislaadaan oo dhuguc noqdaan qayb marka aan waxaas oo dhan lagu xirayn oo kale ta jirta hadda aneexada oo kale to iyo ilgeelka iyo markii aad aragto ay soo baxaanin ba goosanaysa xoogaa markay waxa weeye dilaa ku run yahay biyo yeeshaan oo fiicnaada iyo rooxaduna waa bislaataa xilliba iyo duqaa
qaata laakiin marka adigu calay kulli xaal cunada noocaas oo kale taaba dadka noocaas oo aan ku soo sheegay ay ka heli jireen waxa weeye dila ku raya dhulka waayahay dhirtu marka cunada kaliya kuma ay xiran jireen hababka noocan oo kale taa oo soo socona wal wadaagto waxa jiri jiray dhir waxa weeye dila ku raya baarkooda la cuno baarkooda geedka baarkiisa asaa cunaysa adoo arigaaga iskala joogto marooradii ama geelaagii ama waxa weeye dila ku raya xoolahaagii ama loodii la joogo oo hoodkiis ka dhex maraya ama meel cilla ah maraya baa waxa dhacaysa in aad waxa weeye dhirta iska hesho xilliyada barwaaqada mararka qaarkood waxa weeye marka geedaha baarkooda la cuno waxa kamid ah geedka la yiraahdo maroorada oo kale geed dhanaan oo dhirta waxa weeye isku marmara weeyo waxa soo goosanaysa baarkiisa sare xogaa yaro dhanaana marka oo biyalaba marka laga helaa carab lo-aadkii baa kamid ah xamakowgii baa kamid ah dilakujinowgii baa kamid ah oo kale xogaa dhanaan baa isaga laga raadiyo geedkaas caleentiisa oo kale tay soo gurtaaniin marka barwaaqada noocaas ah baa dhirteenu ay lahayd waxa jirtay dhir marka baridooda la cuno iyaga geedkii markuu waxa weeye dhulkii ku jiro oo waxa weeye dila ku rayahay uu soo baxay qaybta inta baridiisa ah baa marka waxa weeye dila ku rayahay la cunaya waxa marka laga dhiganaya waxa weeye biyo baa laga dhiganaya waa raadan tahay geed baad waxa weeye dila ku qodatay waxa weeye waxa kaaga hadhay dhibtii iyo haraadkii baa kaaga hadhay dhirta marka baridooda la cuno waxa kamid ah dila ku rayahay geedka la yiraahdo burdadka oo kale cidi weyloodka geedka yiraahdaan doobirta gocosada dhirtaas oo dhan waa dhir ay intay waxa weeye qotaan marka hangoolkooda iyo waxa weeye usha hadba ama waran ka tiga aad ka haystaan ay ku qotaan marka ay la soo baxaan isla markaana ay waxa weeye hadba qayb jabsadaan oo kale sida hadda adigu reer magaal baa tahay tufaaxa oo kale taa maartay u jabsato qaabkaas oo kale ay u jabsanayaan marka dila ku biyo marka ka helayaan ma sha Allah halka marka watay marisay waxa ku xiga dhirta hadii la ku roon yahay mirahooda la kariyo dhirta qaar baa inta miraha laga soo guro waxa weeye dila ku roon dib laga mara oo Soomaalida waa tan ku maahmaada dila ku roon yahay fadhi iyo food ciideed la isku helo dhir marka waxa jira inta geedkii la koro oo mirihii laga soo guro mirihii hadana dib loo habeeyo oo waxa weeye waaga ka bacdi la dheefsado dhirtaas oo kale miraheedu waa mira ku kaydmi kara oo muddo waxa weeye ku joogi karo kale geedka garaska oo kale taa kamid ah mirihiisa waxa la yiraahdaa dila ku roon yahay waxa weeye waa miro la kariyo dila ku roon cad yar oo waxa weeye ka sareeyo xub ah oo guduudana waa ay leeyihiin qolof weyn oo laga tuurano waa leeyihiin gal kale oo cad oo laga deerana waa leeyihiin saddex gal meelahaas buu leeyahay marka waxa kamid ah yicibkii oo kale geed kaskeed qodaxla oo kale to waxa weeye de mirihiisa la soo guro mirihii waxa weeye la dubo hadana waxa weeye la kala saaro hadii la doono la kariyo oo waxa weeye dib laga maro marka laguma helo waxa weeye sahal wax laguma helay mahmaadaas sheegaysa marka la fadhi iyo food ciideed la isku meel marka dhirtaas oo kale tan waa dhir iyaduna miraheeda qaabkaas looga faa'iideysto waxa ku jirta marka reer miyigu hawdkaas isaga noolaayeen magaalooyinka inta badan waa ka fogaayeen waxa jiri jiray dhir baa waxa weeye waxa lagu dhaqan jiray dharka oo kale to markuu ka uska goobo waxa weeye dila ku reeyay ama xogaa istiraal alle maanta u baahan yahay ila dhaqo geed baa baridiisa la soo baxaya dila ku reeyay kadibna ama waxa weeye laamihiisa oo kale to kadibna waxa weeye biyihii baa waxa weeye u daraysa abur buu yeelanaya kadibna jeermiskii iyo waxa weeye dila ku reeyay waxaas saas maradiyo waxa weeye xogcada ku soo baxaysa marka geedahaas oo kale waxa kamid ah gasangasta geedka la yiraahdo oo kale madax buuqda iyo dhirtaas oo kale waa dhirta waxa weeye dila ku roon yahay dharka lagu dhaqdo oo waxa weeye aburka samaysan marka waxa weeye dharka aadka saafida iyo quruxda uga dhigta waagi hore marka iyagu magaalooyin maadaama aanay joogin dhirtoodaas wax walba ka heli jireen waxa kugu xiga hadii la ku roon yahay dhir ay qubayska oo kale to isticmaalaan ama timaha oo kale to loo adeegsado si ay qurux marka kugu noqdaan waxa weeye ugana haraan waxa weeye dila ku roon yahay wasaqda uga hadho marka dhirtaas caleenta gobka oo kale to iyo hadii la ku roon yahay dhaban koolisa geedka la yiraahdo iyo caleenta gamashka iyo dhirtaas oo kale tan waa dhir caleentooda marka iyaduna waxa weeye dila ku roon yahay biyihii markii aad ku shubto gacantaada caleentiina ay sidaas isu mariso abur yeelanaysa weey sida shaambaxayraanta oo kale to qaabkaas oo kale tay marka yihiin marka waa dhirtaasna waa ay ku qubaysan jireen marka waxa moodaa dadka kale hadii ay ilbaxnimadan iyo waxaaniba aanay imaan dad noloshoodu sida ay u sii jirtay weey oo waxa weeye aan magaalooyin iyo waxa dila ku roon yahay waxba kaga xireen oo dhirtoodaas iyo xoolahoodaas bay ku dhaganaa jireen hadda marka dhaqankii iyo dhirtii iyo wax weeye dawaaidkii iyo wixii dhan waa laga tagay dadku waa reer magaalooyin hadda waayahay dhirta marka udug ahaan ay u adeegsan jireen udugga waxyaalaha carfisooyinka ama barafuunada ama catarada waxaas oo kale dhir ay u adeegsan jireen ba jirtay dhirahaas marka iyagana geedahaas maxaa kamid ahaa geedka shadaabka la yiraahdo marka waa geed guryaha la dhigo ba la yiri oo udug u noqda waxa jirta xabagta waxa weeye geedka muxorka oo beeyada la yiraahdo guryaha loo shidan jiray oo waxa weeye siyaabo badan looga faa'iideysan jiray iyaduna waa jirtay
waxaa kaloo jirtay haddii la ku reeyahay geed xamarka oo kale geed xamarku waa geed goortii waxa weeye caanaha la lulo subagii laga soo saaro subaga lagu sii udgiyo isaguna marka udugna saas oo kale haday u baahan yihiin dhirta qaarkood uga heli jireen dhirta marka haddii la ku reeyahay culayga waxa weeye weelka caanaha si jeermiskii looga dilo udugna uu u yeesho dhir lagu culo oo lagu hagaajiyo jirta meegaaga oo kale iyo bilcilka iyo shilinka iyo haddii la ku reeyahay gubungubka iyo jilabka iyo waxaas oo dhan baa ka mid ahaan jiray iyaguna waayo marka meygaagu waa geed caadi ah oo wax lagu culo bilcilka laakiin jiliftiisa geedka jiliftiisa la soo qaadaya jiliftaas baa waxa weeye haddii la ku reeyahay lagu haddii la ku reeyahay culaya shilinka geedka la yiraahdo ikan shilinka oo kale waa geed waxa weeye inta badan nimanka geel jiraha oo gaawaha waxa weeye inta badan lagu culo oo gaawaha marka la culayo inta badan sida haamaha iyo dhiilaha oo kale looma culay qoryihiisa isaga qaabkaas oo kale qoryaha gaagaab looga dhigo oo marka loo shido qaabkaas oo kale la isu dhaafiyo baa marka hadii la ku reeyahay rubgaalkii ama toobkii ama bire hadba ka u taqaanisaa loogu gambinaya marka isaga bas marka halkaas waxa weeye hadii la ku reeyahay saasoo soo kulmay halka dhiisho oo kale iyo haruubkeeda iyo ahaanta iyo lagu waxa weeye aaburo marka waxa weeye la ruxo haruubka qaabkaas oo kale marka loogu sameeyo isaga marka geedkaas oo kale ugu muhiimsan geedaha hoose oo marka gubungubka iyo jilabka ay ka mid yihiin iyagu waa geedo loo adeegsado deeb ahaan oo geed aan laf adag marka lahayn geed dabkii baa marka waxa weeye la qabadsiinaya goortu marka balbalkii qaabto baa waxa weeye qaabkan oo kale ahaanta gudaheedii ama dhishi loogu wareejinaya kadib marka isaga marka waxa weeye waa deeb baa marka habkaas la yiraahdo waxa soo hadhay dhirta waxa weeye caananada leh caananada markaan leeyahay waxa weeye waa dhir caanaheedu waxa weeye ay sida baasha koolada dhaqaatiirtu isticmaalaan oo kale ay leh weeye oo xanjo yar oo kugu dhageysan marka waxay sameeyaan xoolaha oo kale markay neefkii ay rabaan inay neefka ka guriyaan oo kale ama waxa weeye rida oo kale ama laxda oo kale xoogaa yani tabar ahaan la isiraahdo waxa weeye neefkan haddaan laga gurin loo boqo baa inta badan laga guriyaa neefkiina uu weynaaday marka waxa la sameeyaa mara yar oo dhuub ah bay soo jeexanayaan kadib ama meeraha hadba waxay helaan kadibna caananadaas la marinaya kadibna naaska neefka baa lagu duubaya marka waxa geedaha marka noocaas oo kale caananadooda ay ka faa'iideystaan caanahooda waxa kamid ah geedka la yiraahdo gaaragooga iyo dhirindhirka laba geed oo xoogaa isku dhow weeye laakiin xoogaa bay kala weeyeen midna inta badan dhulka adag oo waxa weeye qarka oo kale ka baxa midna meelaha didibka oo adag buu xoogaa ka baxa marka waxa weeye saas iyaguna u kala duwan waxa ku soo haray dhirta daawo ahaan ay u adeegsan jireen dadkan markay xanuunsadaan oo kale ama xooluhu waxa weeye geel oo kale uu iska laayo ama xoolo bahal intuu u soo dhaco uu neef ka dhaawaco ama hadii la ku reeyaa abeeso iyo bahal iyo wax qaniinaan ama hadii la ku reeyaa kaadida oo kale ay qabato ama waxa weeye nabar oo kale jirka uu ka soo baxo waxyaalo badan baa moogtay ku dhici jiray marka wixii ka soo hara cadka iyo caanaha oo laftigoodu daawo u ahaa dhirtaas la adeegsan jiray waxa marka dhirtii kamid la adeegsan jiray geedka la yiraahdo iken dhumayga geedka dhumayga la yiraahdo waxa la sameeyaa xididkiisa oo kale ama laantiisa oo kale baadiirkeeda soo guranaysa diirka waxa la sameeyaa marka la soo fiiqdo waa la dubayaa kadibna mooye iyo kala yar baad soo qaadanaysaa waa ku tumaysaa markuu ridiqmo baa waxa la sameeyaa baa waxa lagu shubayaa isagoo bita ah oo qalalan baa waxa lagu shubayaa meeshii dhaawaca waxa weeye uu ka gaaray neefka ama bahal ku qabtay ama wax weey adiga laftigaagaas toorey oo kale tay waxay ku halakayeen marka bas jirkii marka uu isku imanaya saas uu ku dawoobaya ma sha Allah way dinsiga oo kale waa geed isla sidaas oo kale isagana loo isticmaalo jirmada oo kale iyo xididka xamarka oo kale neef qofka goorta kaadidu qabato oo kale inta badan xididkiisa oo kale loo soo diiraa kadibna biyo loo laaqa ama caano kadibna waa la siiyaa kadib waxa weey kaadida qofkaas waa siideen samarka waa ka imanaysa jirmada markuu waa laba geed isugu jira geed lab iyo geed dhadig weeyo waxa lagu kala gartaa laanta geedka la soo gooyaa xoogaa waa la qaloociyaa haday laantaas marka bow tiraado jabto geedka la raadinayo waxa weeye leedka labka awa hadii laakiin ay laabmayso oo jilicsan tahay oo plastic oo kale ay tahay geedka waxa weeye dila ku ranay dhadiga weey marka ka boodaya lama rabo kan kale waxa la rabaa dila ku ranay laantiisu ay laabmayso waxa kugu jira isagana ku xiga geedka la yiraahdo meeraxdii quraca oo kale meeraxdii quraca oo kale to dakhar baa laga yaabaa dhagax intii mid kugu jiido waraf uu kugu dhufto in dakhar ku gaaro oo jirkii waxa weeye madaxii oo kale meel ay ku dilaa bas hooyadii ama aabihii ama wiilkii curadka oo kale to qofkii kale wax ku dhacaan qaabkaas oo kale taa marka waxa weeye geedka meeraxdiisa la soo diirayaa waa lagu xirayaa marka meesha marka waa biskoonaysa halkaas dhiig joojin bay u adeegsanayeen marka waxa la yiraahdaa chilow baa habkaas marka la yiraahdaa geedkaas marka waxa weeye laga faa'iideysto meeraxdiisa waxa la yiraahdaa chilow wuxuu samaynayaa marka geedkan kale oo la yiraahdo afutaxolka oo kale isagu waa geed qalajiye ahaan ay u adeegsadaan waxa weeye dhulka nugaasha uu ka baxa
marka xididkiisa la soo qodanaya isagana waxa weeye qalajiyaha kaniiniga u taqaano kala taa loo adeegsanaya isaga marka waa geed isaguna dawaayada warakasiibka oo kaleeto isagu nabarrada soo baxa inta badan baa lagu daweeyaa nabarka soo baxa oo meesha ka soo baxo oo kale baa la rabaa inuu waxa weeye malaxdii iyo carunkii wixii gudaha ku jiray uu soo ururiyo kadibna af yar marka uu sameysmo had marka kadibna uu nabarku uu sida ku biskoodo marka geedka waxa la sameeyaa isaga meeraxdiisaas yar baa la soo diiraya ushaas la iska tuuraya kadibna waxa la sameeyaa caano neef baa waxa weeye lagu daraya kadibna ama waxa weeye biyo hadba kii aad marka hesho baad markaa meeshii waxa weeye saaraysaa kadibna wuxuu samaynayaa wuu soo ururinaya wixii meesha ku jiray carunkii bugtadii oo dhan kadibna saasuu waxa weeye barnaanka u keenaya wixii meeshaas cudurkii ka jiray kadibna jirkaaga caadi buu markaa kuu noqonaya marka dhirta noocaas ah oo dawaa'idka noocaa leh baynu inagu waxa weeye deegaankeenu leeyahay oo aynu waxa weeye dalka runaya ka hurdnaa oo la rabaa marka inaynu taambarno aynu ka faa'iido waayahay dhirta asalka agabka guryaha gabadhii guriga dhisatay alaabteedii agabka gurigeeda ka mid ah waxay rabtaa inuu aga qurux badan noqdo oo isubagto oo hadii la subko oo la aslo baa la rabaa moogta dhirta marka asalka ahaan loo adeegsado geedka sarmaanta qaroonta oo kale gumraha hadii ay ku run yahay xagarka geedahaas oo kale ka mid ah marka waxay noqonaysaa iyaduna waa dhirta asal ahaan marka loo adeegsado dhirta waxa weeye hadii la ku ranya xanjada laga gurto xanjada marka waxa weeye inagu magaalada aynu iibsano geedaha miyiga waxa weeye ku yaala waa laga soo gurto iyadoo lacag la'aan marka geedaha bariidaadka geedka la yiraahdo gumraha iyo muqlayga ayaa kamid ah dhir marka waxa jirta hadii la ku rayahay geed quwax la yiraahdo oo biyo laga shaqsado ciyalada yarka ay goobta yareeyihiin ay gurtaan oo dhulka intay ka soo bixiyaan marka ay quwax ka dhigtaan dhirtaas marka qaroonta iyo bariidaadka iyo hadii la ku rayahay findhicilka iyo gumraha iyo dhirtaas ka mid ah dhir marka waxa jirta dabka laga dhaliyo oo u nugul in dabkii laga dhaliyo marka labada qori la isku xoqo hadiiba waxa weeye dabkii bul uu ku dhahayo dhirtaas marka reydabka iyo waxa kamid ah geedka la yiraahdo dhuumoodka kamid madag ahaan ba marka loo habka waxa la yiraahdo madag baa ilaa sifayntii weelka ku soo haray weelka hadii biyo la'aan ay ku dhacaan biyuhu ku yariyeen wax tashiilanayso dambaska iyo ciida iyo geed cadka iyo waxa soo dhan baa waxa dhan lagaga eber lagaga dhigaa kadibna xoogaa yar oo marka biyo ah oo iyagoo biyihii dhaqaalisanaya bay si mariyaan marka bay ku xalaan layligi marka casharka wakan wuxuu leeyahay isku aadi ereyga meesha kugu qoran iyo hadii la ku reeyay macnihiisa maqal baa lambarka koowaad ku qoran lambarka labaad meesi baa ku qoran waa qayb xoolaha kamid ah tiigsin baa ku qoran xayeeshi jiilal dhanka kale maxaa kugu qoran daaq meel fog loo aado abaar hadii la ku reeyay caato hadii la ku reeyay ido iyo riyo la isku daray naylo iyo xaro marka waxa la rabaa inaad inta isku aadiso marka aad keento hadii la ku reeyay jawaabtii saxda ah marka soo saadho